السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan dhageystayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena islaamka nolosha. waxaana marti ku ah barnaamijkeena Sheekh Salaad Cantoob Xasan oo kamid ah culimada Soomaaliyeed. aan ku soo dhaweeyay barnaamijkeena Sheekh Salaad si uu inagu daahfuro barnaamijkeena darsi ku saabsan waxyaabaha ku saabsan mowduuceena oo maanta uu noqonayo ama caawa salaada musaafirka. Sheekh aan ku soo dhaweeyo falay tafadal. شكرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الغر الميامين. وبعد، أيها الأحبة، أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذه السكالة inoogu nicmeeyey nicmooyin fara badan oo ay ka mid tahay nicmatul islaami wal iimaan. mowduucayna wuxuu ku saabsan yahay salaatul musaafir, ruuxa musaafirka ah salaada uu tukanayo, salaatul jamci wal qasri, salaadaha la isku kulminayo ama la kulminayo, iyo salaada la gaabinayo. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله تبارك وتعالى وحليه صلى الله عليه ومد النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله سبحانه وتعالى دشين الدين تدحذ إذا مؤسن يلين وح عريريا تاسو معناه ذو أيتهي إلهي سبحانه وتعالى أحكام الدين قاه wax bini aadamka ay ku dhibtoonayaan ilaahay ma noo jidaynin subxaanahu wa tacaala. ma uusan nagu kallifin wax yacnii wareer iyo dhibaatana gelinayo. mar walboo qofka muslimka cidhiidhi uu galo, ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimka wuxuu u ballaarinayaa diintiisa si axkaamta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u naqato mid la qaadi karo. lidaa walaalayaal, saa darteed safarku waa qayb ka mida cadaabka. insaanka wuxuu waayayaa xasiloonidiisa iyo nasiinadiisa ayuu ku waayayaa markuu safrayo. mahmaa kaanad wasiilatu safar, safarka wasiilada uu ku gaarayo nuucay doonto ha ahaato, shaqada uu u safray waxay doonto ha ahaato, hadba qofka safar markuu galo wuxuu la kulmayaa xasilooni la'aan iyo raaxo la'aan. saa darteed safarka waxaa lagu tilmaamay uu ka mid yahay 4 qaybood oo lagu sheegay shadaa'idu dunyaa, waxyaabaha adduunyada shidada ku ah. safarka 1 saacba allaha ka dhige wuxuu ka mid yahay shidooyinka adduunyo. saa darteed allah subxaanahu wa tacaala musaafirka wuxuu ka fududeeyey in fara badan oo axkaamta diiniga ah ka mida. waxaa ka mida waxyaabaha la fududeeyey salaada. waxaan dul istaagi doonnaa baxhigayna kani habka qofka salaada looga fududeeyey markuu musaafirka yahay, salaada uu safarka ku dukanayo shuruudaha ay leedahay, iyo habka looga faa'iidaysanayo. qofka musaafirka ah salaadiisa siday noqonaysaa? habka ay noqonayso, allah subxaanahu wa tacaala ruuxa musaafirka ah salaadiisa wuxuu u banneeyey 2 rukhso. midda koowaad waa ikhtisaarun fi rakacaati wa yusamaa qasran, waa gaabin la gaabinayo tirooyinka ragcada. ragcooyinka salaadu ay ka kooban tahay ayaa la gaabinayaa, taana waxaa lagu magacaabaa qasri. midda labaadna waxay tahay adaa'u salaatayni fii waqti ixdaahumaa wa yusamaa jamcan, labadii salaad baa waxaa lagu gudanayaa hal waqti. labadii salaad mid ka mida waqtigeeda ayaa laysugu kulminayaa, taana waxaa lagu magacaabaa jamci. marka qofka musaafirka ah salaadiisa 2 rukhso ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u banneeyey. waxaan ku hormaraynaa gaabinta salaada la gaabinayo ayaynu ku hormaraynaa. markaynu fiirinno xagga mashruuciyada salaada in la gaabi karo maxaa asal u ah? الله سبحانه وتعالى قرآن كيسا وحكوليه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وحير رب سبحانه وتعالى
haddii aad dhulka ku safraysaan wax dembiya dushiinna ma ahaanin inaad salaada gaabisaan haddii aad ka baqaysaan kuwa allah subxaanahu wa tacaala ku kufriyey inay idinka fidneeyaan salaadiinna. aayaddan waxay ka hadlaysaa marka maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam inta badan salaadaha ay gaabinayeen amba nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa salaadaha ay gaabinayeen markii la jidaynayay ay ku jireen safarro ku salaysan duulaannadii nebiga u geli jiray calayhi salaatu wasalaam. aayaddu marku waxay tilmaamaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa inay salaada gaabin karaan haddii ay ka baqaan in salaadihii laga fidneeyo. marka xilligaa waxaa lagu jiray xilli baqdin ah oo amni iyo xasillooni aysan jirin. saa darteed saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaddaa tafsiirkeeda aad bay ugu wareereen. saxaabiga la yidhaah yaclaa bin abi umaya oo aayadda tani ka warramaya wuxuu yidhi sayidinaa cumar ibni alkhadaab radiallaahu canhu ayaan u tagay buu leeyahay yaclaa bin umaya. waxaan sayid cumar ku idhi sayid cumarow ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu. ilaahay wuxuu yidhi wax dembiya dushiinna ma ahaanin inaad salaada gaabisaan haddii aad dadka gaalada ah ka baqaysaan. faqad amina annaas dadka hadda amni bay heleen salaaddii ma la gaabin karaa sidaa baan ku idhi sayidinaa cumar ibni alkhadaab radiallaahu canhu. wuxuu sayid cumar ku jawaabay abii yaclow cajibtu mimaa cajibta minhu waxa aad la yaabtay sidoo kale aniga horay baan ula yaabay. waxaana weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinkaa hadda aad i weydiinayso adiga kaa hor ayaa nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna nebiga iigu jawaabay sadaqatun tasadaqa allaahu bihaa calaykum faqbaluu sadaqatah. arrintaa oo ah fududaynta laydinka fududeeya salaada oo ah gaabinta aad salaada gaabinaysaan waa sadaqo ilaahay uu idinku sadaqaystay ee hadiyadii ilaahay uu idin siiyey aqbala. fudaydka uu diintiisa idiin fududeeya aqbala. sidaa buu nebiga igu yidhi ayuu leeyahay sayidinaa cumar ibni alkhadaab radiallaahu canh. xadiiskan waxaa soo saaray imaamu muslim markuu ka warramayey baabu salaati almusaafiriin wa qasrihaa dadka musaafiriinta habka ay salaada u tukanayaan iyo gaabinta ay gaabinayaan salaada. wuxuuna uga warramay safxada 686 ayuu uga warramay. xadiiskan wuxuu daliil cad u yahay salaada la gaabinayo inaysan gaar ku ahayn xilliga baqdinta ee qofka markuu baqdin ku jiro iyo markii amni uu ku jiro intaba haddii safar uu galo safarkuna uu yahay safar mubaax ah inuu salaadii gaabin karo ayaa laga qaadanayaa xadiiska kani. masaafatulqasri salaada la gaabinayo masaafo heerkee ah baa loo fiirinayaa. imaamulbukhaari raximahullaahu tacaalaa xadiis uu tacliiq ku warinayo wuxuu ku leeyahay isagoo soo xiganaya cabdulaahi bin cumar iyo cabdulaahi bin cabbaas radiallaahu canhumaa. wuxuu leeyahay imaamulbukhaari kaana ibnu cumara wabnu cabbaas radiallaahu canhumaa yaqsuraani wayuftiraani fii 4 burdin wahiya 16 farsakhan. wuxuu yidhi imaamulbukhaari cabdulaahi bin cumar iyo cabdulaahi bin cabbaas allaha ka raadi naqdee waxay salaada ku gaabin jireen soomkana ay ku afuri jireen 4 hoos qabow waxayna la siman tahay 16 farsakh oo u dhiganta ama la siman 80 kilomitir taqriiban. macnaha 4 burdiga waxaa la yidhaha 4 hoos qabow. 4taa hoos qabowna waxay u dhigantaa 16 irisoof. halkii irisoof wuxuu u dhigmaa 3 mayl. 16 haddii lagu garaaco 3 mayl waxaa soo baxayso 48 mayl. 48 maylna waxay u dhigantaa 80 kilomitir taqriiban. masaafada qofka uu salaada ku gaabin karo taqriiban waa 80 kilomitir sida saxiixa ah, inkastoo culimmada qaar ay sheegeen 96 ay sheegeen, laakiin sida raajixa ah iyadoo cabdulaahi bin cumar iyo cabdulaahi bin cabbaas loo cuskanayo waxay salaada ku gaabin jireen taqriiban 80 kilomitir. habkee salaada loo gaabinayaa? kayfiyatul qasri, qaabka ama habka salaada loo gaabinayo. qofka musaafirka ah oo safarka mubaaxa ah oo bannaan safray wuxuu salaada u tukanayaa ama habka uu u gaabinayo waxay tahay
salaadii inuu laba ragco xirto. masalan haddii uu duhurka gaabinayo inuu yidhaahdo usallii farda duhri ragcatayni, ama uu yidhaahdo usallii farda duhri maqsuuratan lilaahi tacaala. macnaha wuxuu niyeysanayaa salaaddii dhexdeeda buu qasri ama gaabin ku niyeysanayaa. waxa la gaabin karana waa salaada afarta ah sida duhurka iyo casarka iyo salaada ceshaha. waxaa jira gaabinta salaada la gaabinayo shuruud loo fiirinayo ayaa jirta. salaatul qasri waxay leedahay 7 shardi. shardiga koowaad, safarku inuu yahay 2 marxalo, waa 80 kilomitir, waa inuu safarka yahay. shardiga labaadna wuxuu yahay safarka inuu noqdo safar mubaax ah oo macsiyo aan ahayn. haddii safarku uu yahay safar aan bannaanayn, salaada laguma gaabin karo, sida haweenayda iyadoo naashiso ah oo ninkeeda amar la-aantiisa baxday ma gaabin karto. qofka haddii uu u safro inuu jidgooyo dhigtana ma gaabin kariyo salaadii hadduu tukanayo. haddii qofkii uu u safro inuu qaraabo soo gooyo oo qaraabo uu isku soo diro, salaadii ma gaabin kariyo, ilaa safarkii baa macsiyo ah. safarku salaada la gaabinayana waa ruqso xagga alla ka ahaatay subxaanahu wa tacaala. qof caasiyane ruqso ma yeesho. shardiga saddexaad, alcilmu bijawaasi alqasri. qofka salaada gaabinayo inuu cilmi u leeyahay salaada in la gaabiyo inay bannaan tahay. haddii uusan ka warqabin salaada in la gaabiyo inay bannaan tahay, hadda kayfiyadii habkii salaada loo tukan lahaa ayuuba garanayn siduu salaada u tukanayaa. shardiga afaraad, niyatul qasri cinda alixraam. qofka markuu salaada xiranayo inuu niyeysto gaabintii salaada uu gaabinayay. shardiga shanaadna wuxuu yahay salaada la gaabinayo inay tahay salaada afarta ah sida duhur iyo casar iyo salaada ceshaha. shardiga lixaadna wuxuu yahay dawaamu safari ilaa tamaamiha, ilaa salaada ay ka gabagabowdo in safarku uu joogto yahay ee safarka uusan dhammaan. shardiga toddobaadna wuxuu yahay qofka inuusan salaada ku xiran, waa qofka gaabinayee inuusan salaadii uga dayan ama ku xiran ruux salaadiisa dhammaystirayo, haba ahaado ruux musaafira. qayb salaadiisa ka mida inuusan uga dayan ama uusan ku xiran ruux salaadiisa dhammaystirayo, xitaa ruuxa ha noqdo ruux safarkii ku guda jira. 7 shardi ayaa loo fiirinayaa salaada la gaabinayo. markaynu u soo gudubno jamaca la jamcinayo salaadaha, waljamcu bayna salaatayn fi safar ruqsa. 2 salaadood in la jamciyo waa ruqso xagga alla ka ahaatay subxaanahu wa tacaala. jamacana macnihiisu wuxuu yahay 2 salaad waqtigeeda baa 2 salaad laysugu keenayaa. 2 suuro ayaa loo qaybiyaa. waxaa la yidhaahdaa jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir. jamcu taqdiimka waxaa loola jeedaa salaad baa la soo hormarinayaa oo waqti aysan lahayn baa la keenayaa, markaasaa waqtigii la keenay lagu tukanayaa. tusaale ahaan qofka masalan haddii uu safrayo, tusaale ahaan qofkii wuxuu safrayaa 7 saac ayuu safrayaa. xilligaa waxaa iskale marka salaadii duhurka. qofkii marka safarkiisa wuxuu dhammaanayaa salaada maqribka markii ay gasho ayuu safarkiisa dhammaanayaa. qofkii marka wuxuu soo rarayaa salaadii casar, wuxuuna keenayaa waqtigii duhurka. meesha ayuu 2 salaadood ku tukanayaa. mid kastana salaamo naqsigeeda buu la imaanayaa ee salaadaha laysku dari maayo. marka jamaca waxaa lagu magacaabaa jamcu taqdiim. jamcu ta'khiirka suuraddiisu waxay tahay qofkii masalan wuxuu safrayaa 5 saac oo maalmeed, safarkiina wuxuu dhammaanayaa 10 saac oo maalmeed. meeshaa marka waxaa ku maqan salaadii duhur. qofka marka wuxuu niyeysanayaa salaadii duhur inuu u geeyo salaadii casar. jamacaasna waxaa la yidhaahdaa jamcu ta'khiir. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayayna intaas oo idilka sugnaadeen. mucaad bin jabal saxaabiga jaliilka radiallaahu canhu wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayaa, wuxuu noo warinayaa ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. mucaad wuxuu yidhi duulaankii tabuug oo caanka ahaa markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u safray, markuu safarka galayo qoraxda intaysan soo kor noqon duhurka ayuu dib u dhigayay, wuxuuna u geynayay duhurka ama u rarayay waqtiga casarka. meesha ayuuna 2 salaad ku tukanayay. jamacaasna waxaa la yidhaha jamcu ta'khiir. nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu safrayo, markay qoraxdii suusho kadib oo salaada duhur ay gasho,
duhur iyo casar ayuu kulminayay, kadib ayuu socodka galayay. jamacaasna waxaa la yidhaha jamcu taqdiim. maqribka iyo ceshahana sidaas ayuu nabiga ku samaynaya calayhi salaatu wasalaam. xadiiskaa waxaa soo saaray abu daawuud raximahullahu tacaala, wuxuuna uga waramay baabuljamci bayna salaatayn ayuu uga waramay, safxada 1208 ayuu uga waramay. sidoo kale imaamu maalig ayaa kitaabkiisa muwada'a xadiiskaa ku soo saaray. markaynu fiirino shuruudaha jamca oo jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir, waxaynu ku horeynaynaa jamcu taqdiimka wuxuu leeyahay 4 shardi. shardiga koowaad wuxuu yahay salaada laysku jamcinayo oo jamcu taqdiim ahaan loo tukanayo, safarku inuu daa'im yahay oo qofka inuu safarkii ku jiro markii salaadaha uu tukanayo. shardiga labaadna wuxuu yahay salaada waqtiga iska leh in la hormariyo. masalan salaada lasoo hormarinayo haddii ay tahay casar oo loo keenayo duhur baa la bilaabayaa, kadib baa casirkii la tukanayaa. haddii ceshihii lasoo hormarinayo maqribkii loo keenayana maqrib baa la bilaabayaa, kadibna cesho baa la tukanayaa. taqdiimul uulaa ayaa shardi ah, salaada midda waqtiga iskale ayaa la bilaabayaa. shardiga saddexaadna wuxuu yahay niyatuljamci qabla faraaqi l uulaa, jamaca inuu qofka niyeysto inti salaada uulada uusan ka bixin. shardiga afaraadna wuxuu yahay allaa yufariqa baynahumaa, labada salaadood inuusan tafriiq ama uusan kala saarin, yacnii duhurkii markuu tukado horay inuu casirkii ka tukado, sidoo kale maqribka hadduu tukado ceshihii inuu haddana ku daba xero, wax sunnaa uusan u dhexaysiin. jamcu ta'khiirkana waxaa loo shardinayaa niyatu ta'khiir waqad baqiya min waqti luulaa maa yasacuhaa. waxaa shardi ah salaadii uulada waqtigeedoo jira in niyadii ta'khiirka uu la yimaado. haadaa wabillaahi towfiiq, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. rabbi ajar iyo xasanaad ha ka siiya sheekh salaad cantoob xasan oo inoo soo koobaya mowduuceennii ku saabsanaa barnaamijka, gaar ahaan mowduucii ku saabsanaa salaada musaafirka ama salaada la jimciyo ama la gaabiyo. weli waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeenii islaamkii nolosha. waxaan rajaynayaa inay dhegeystayaasheenna ay aada u fahmeen mowduuca barnaamijkii ku saabsanaa. haatanna waxaan firinaynaa dhegeystaha ugu horreeya ee qadka ku jira. halow dhegeyste. halow, asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmatullah. walaal magacaaga iyo halkaa joogto? waa maxamed sheekh cumar oo jooga waxsanaad walaal. maxamed, ma la socotaa barnaamijka? si wacan walaal. u gudagal su-aashaada. sheekha waxaa rabaa inaan weydiiyo, anigoo safar ku jiro, safarkayguna dheer yahay, haddana ka baqanaynin wadada nadiif tahay intii ugu filan aan wato, gaadiidna aan wato, xiliga salaada igu timaado, salaada safarkayga ma waansi karaa mise hore sii socon karaa, waa kulmi karaa salaada? waa tahay maxamed, waxaan rajeynaya inuu sheekha su-aashaada uu fahmay uuna kaaga jawaabaya. aada buu umahadsan yahay maxamed sheekh cumar. horta asbaabaha salaada loo gaabinayo waan sheegnay, waa safar yacni tawiil ah. shuruudahana waxaa ka mid ah safarku inuu tawiil yahay. marba qofka haddii uu safro safar tawiil ah, meesha ugu yarna ay ka bilaabanayso 80 kilomitir, qofkii inuu salaada gaabiyo way u bannaan tahay. marka qofka haddii uu baabuur saaran yahay ama gaadiid uu degi karo oo salaadii uu tukan karo, waa sidii fiicneeda wuu degayaa. haddii laakiin degitaankii ay ku culus tahay oo dadkii rafiiqa la ahaa ay ka tegayaan, dushiisa culays ma ahaanin, dadkaas buu raacayaa, ruqsadii ilaahay siiyey ayuuna ku dhaqmayaa. wallaahu aclam. waxaan rajeynayaa su-aashii uuna soo weydiiyey maxamed sheekh cumar inuu ka jaahil baxay ama uu aada u fahmay. dhegeyste lagu magacaabo abubakar cali oo jooga degmada daynile gaar ahaan gubta, waxa uu leeyahay waxaan sheekha weydiinaya anigoo safar ah, saaranna diyaarad, fursadna u haysta inaan tukado balse aanan awoodin jihadii inaan keeno, maxaan samayn karaa ayuu leeyahay. aada buu umahadsan yahay dhegeystahaas. qofka yacni markuu safrayo ruqsooyinka la siiyey waynu caddaynay oo ah salaadii in la gaabiyo misena la jamciyo. qofka marka wuxuu samaynayaa, haddii uu diyaaraddii dusheeda ku tukan karo, uu jihadii heli karo, way fududahay. haddii uusan heli karinne salaadii waqtigeedii ayuu jamci buu niyeysanayaahoo salaadii wuxuu u jamcinayaa, ama waqtigii diyaaradda ay degto ayuu salaadii kale u rarayaa. wax culaysana dushiisa ma ahaaninoo ilaahay baa ruqsadaa siiyey. wallaahu aclam. waa tahay su-aashii uuna soo weydiiyey abubakar cali oo ayuu ahaa ayay ahayd jawaabtii uu ka bixiyey sheekh salaad. dhegeyste lagu magacaabo xuseen waxa uu leeyahay waxaan salaamayaa sheekha iyo daadiyaha barnaamijka. waxa uu leeyahay waxaan jeclaa inaan ka qayb qaato barnaamijkan islaamka iyo nolosha. waxa uu leeyahay xuseen salaatul istikhaara salaada la yidhaahdo
waqtigee la tukada ayuu leeyahay iyo waxyaabaha la akhriyo iyo inta ragcadood ayay tahay ayuu leeyahay xuseen su-aashiisa waxaana uu leeyahay marxaladda loo tukanayo ama waxyaabaha keenaya in la tukado sheekha inuu ii faahfaahiyo. aad buu umahadsan yahay xuseen. salaada la yidhaha salaatul istikhaara markaynu fiirino mowduuca aynu ku jirno meel bay kasoo geli kartaahoo qofka markuu safrayo wuxuu sameynayaa salaad la yidhaah ama loo sunneeyaa inuu istikhaaro sameeyo. safarka uu galayo inuu yacni salaatul istikhaara uu ka hormariyo waaba sunno. salaada marka waa 2 ragco. labadaa ragco uu qofka tukanayo safarkii inuu yacni ilaahay uga dhigo safar ribxay oo liibaanay ayuu u niyeysanayaa. wuxuuna la imaanayaa ducada macruufka ah oo la yaqaano allaahuma inii astakhiiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratika. ducadaane aad bay macruuf u taho waa la yaqaanaa kutubta ayaana dhigayso wallaahu aclam. waa tahay waxaan rajeynayaa su-aashii uuna soo weydiiyey xuseen inuu aada u fahmay uuna ka jahil baxay. dhegeyste lagu magacaabo xasan ayaa waxa uu leeyahay waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo anigoo u socdo safar tusaale ayuu kusoo qaatay jowhar oo kaleet ayuu leeyahay maxaan samayn karaa salaadihii oo ama xagga gaabinta. aad buu umahadsan yahay. qofka markuu safrayo safarka waxaa laga fiirinayaa inuu yahay safar mubaax ah shuruuddiisana ay dhammaystiran tahay sida aan horay usoo xusnay. marba haddii masaafadu ay tahay taqriiban 80 kilomitir qofkii safarka uu safrayana uu yahay safar mubaax ah oo bannaan waxaa u bannaan 2 ruqso inuu salaadii gaabiyo misena salaadii uu jamciyo wallaahu aclam. waa tahay barrow oo jooga waa beri waxa uu leeyahay haddii aan anigoo safara jihadii ay iga lunto maxaan samayn karaa waqtigii salaadana la joogo. aad buu umahadsan yahay dhegeystahaas. qofka musaafirka haddii inta badan jihaduna way luntaa qofka markuu safro. qofka haddii jihadii ay ka lunto wuxuu sameynayaa ijtihaad wax la yidhaah. qibladii buu ku ijtihaadayaa dhanka ay ka jirto. ijtihaadkiisa iyo dadaalka uu sameeyey meesha ay u soo saarto ayuuna u tukanayaa wallaahu aclam. dhegeyste magaciisa kusoo koobay sayfullah waxa uu leeyahay afgooyo iyo muqdisho ma la dhihi karaa safar. masaa'ilkayna ama mowduucayna faahfaahintiisa ayay ku jirtay. marba haddii masaafadu ay ka yar tahay taqriiban 80 kilomitir safarka salaadna laguma gaabin karo lagumana jamci karo wallaahu aclam. aad baa umahadsantaha sheekh salaada ajar iyo xasanaad halkaas iyo 80 kilomitir marka la yidhaahdo haddii macnaha 1 saac uu qaadanayo safarkaas maxay noqon kartaa marka xaggii salaada ama qofkaas maxaa looga baahanaya. shuruudda horta la fiiriyey safarku inuu yahay safar tawiil ah waxaynu ku sheegnay 48 mayl oo taqriiban u dhiganta 80 kilomitir. 80 kilomitir qofka haddii uu ku jaro muddo 1 saac gudaheed ah gaabintii way u ansaxaysaa iyo jamcii iyo kulmintii uu sameeyey labaduba way ansaxayaan wallaahu aclam. aad baa umahadsantaha sheekh salaad. marka la fiiriyo qofka meesha uu u socdo tusaale ahaan inay leedahay waddo markaas gaaban iyo mid dheer marka muxuu qaadan karaa midda fog miyuu qaadan karaa mise midda dhow oo tusaale ahaan inuu gaari ku tago kaleeto ama diyaarad uu ku tago. xaggii gaabintana macnaha qofka meeshii uu u socday baa 2 wado gasha saasaan u fahmay. kutubta aad bay u sharaxayaan qofka meesha uu u socdo uu u safrayo haddii 2 wado laga galo wadana ay tahay wado masaafadii ku beegan oo 80 kilomitir gaaraysa wadana ay ka gaaban tahay masaafadii maalan 70 kilomitir ay tahay uu qaado wadadii abcadka ahayd midda fog oo 80 kilomitir ah waxaa la fiirinayaa sababta uu u qaaday. sababta uu u qaaday haddii ay tahay nabadgelyo darteed wadadaas fog nabadgelyo darteed buu u qaaday ama wuxuu u qaaday sahlanaan oo in aysan karakeeshin aysan ahayn wuu gaabi karayaa markaas ilaa waxaa la leeyahay muraad baa jiro. laakiin hadduu u qaaday inuu salaada gaabiyo kaliya salaadii wuu dhammaystirayaa wallaahu aclam. waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa mowduuceena barnaamijka sheekh salaad. haddii qofka uu markaas baadi ka luntoo kaleeto uu baadi goob ugu jiro kaleeto ama safar dheer oo meel dheer baadidii uu ka raadiyo maxaa asigana ka waajibay. qofka yacnii waxaa muhiim ah markuu safrayo meesha uu beegsanayo oo safarkiisa ku wajahan yahay in ay macluum tahay ee ay tahay meel la og yahay. haddii qofka uu iska socdaalo meel uu ku jihaysan yahay uusan garanayn tusaale ahaan qof baadi ka luntay baadidana meel uusan ku ogeyn uu isleeyahay meeshaa ku aragto bal raadi qofka salaadii ma gaabin kariyo ilaa uu ka gaaro 80 kilomitir.
siddeetan kilomitir markuu gaaro waxaa u bannaan marka maadaama safarkii uu xaqiiqoobay inuu dawiil yahay markaas ayuu gaabinta bilaabayaa wallahu aclam. sheekh salaad markii la yihahdo 80 kilomitir qofka tusaale ahaan asigoo ku jiro magaalo kaleeto beled uu kala galay marka magaalada intuu ku guda jiro miyuu salaada gaabinaya ama marka uu magaalada uu ka baxo kaleeto waxaa laga yaabaa magaalooyin inuu qofka sii maro kale. aad baa u mahadsan tahay. qofka meeshuu safarka ka bilaabayo ayaa hadba xaaladeeda sida ay u taalbaa la eegayaa. maalan laba suura baa loo kala qaadaa. meesha uu safarka ka bilaabayo beledka uu ka safrayo haddii uu yahay beled gidaar uu ku wareegsan yahay suur baa la yidhaahdaa. haddii suur uu ku xiran yahay ama derbi uu ku wareegsan yahay beledka markuu derbigaa ka tallaabo ayuu gaabinta bilaabayaa. intii derbigaa gudihiisa uu ku jiro salaaddii ma gaabin kariyo. haddii beledku uusan lahayn ama magaaladu aysan lahayn gidaar wareegsan dhismaha ugu dambeeyo markuu ka gudbo ayuu gaabinta bilaabayaa wallahu aclam. waa tahay su-aal kaleeto ruuxa haddii tusaale ahaan waxaa su-aalaha ka imaan kara haddii uu gaaro meeshii loogu talagalay ama uu rabay safarkiisii masna uu doonaya inuu si dhaqsi leh kusoo laabto marka muddo intee la-eg ayuu gaabin karaa salaadiisa marka qofkaas. aad baa u mahadsan tahay. maalan qofkii haddii uu nagaado safar buu ku jiraa meeshii uu doonayay buu gaaray wuxuuna doonayaa inuu soo laabto. haddii qofka horta uu niyeysto inuu iska nagaado asaga warba kuma jiro salaadii wuu dhammaystirayaa. laakiin haddii niyadiisu ay ku jirto inuu soo laabto waxaa loo fiirinayaa muddo la yidhaa muddo oo yacni 18 biri ayuu salaadii gaabin karaa. taana waxaa laga qaatay ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadkii uu furtay magaalada mako maka ayuu joogay 18 biri asagoo salaada gaabinayo wuxuuna filanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaal lagu qaadayay qolada hawaasin la yidhaahdo 18 biri ayuu nabiga ku nagaaday magaalada mako sala allahu calayhi wasalam. marka qofka haddii uu xaajo iyo baahi ama dan uu u joogo meeshii safarka uu ku joogay waxaa u bannaan 18 biri oo kaliya. taana waxaa laga qaadanayaa ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam. waa tahay dhegeyste ayaa waxa uu leeyahay haddii aan gala safar dhanka badda ah waa sidee ayuu leeyahay dhegeystaan. safarka ha ahaado fil barri walbaxri waa isku mid. hadba waxaa laga fiirinayaa masaafadii bariga laga fiirinaya. masaafadii bariga waxaynu ku sheegnay 80 kilomitir badduna waxay la mid tahay bariga. haddii 80 kilomitir loo safrayo salaadii waa la gaabin karaa wallahu aclam. waa tahay dhegeyste lagu magacaabo cabduqaadir waxa uu leeyahay salaadaha la jamcinayo ma loo dhexaysiin karaa akhin iyo aadaan ayuu leeyahay. aad buu umahadsan yahay dhegeystahaas. waxaan sheegnay oo shuruudda salaatuljamciga shuruuddeeda waxaa ka mid ahaa labada salaadood wax tafriiqa wax kala bixinayo inaan la dhexgelin sida sunnadoo kale. laakiin aadaanka iyo aqimka waa la dhexgelin karaa sida nabiga uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam. yacni labada salaadoo laysku jamcinayo haddii salaada uu jamcinayo ama maalan haddii duhur uu tukado casirkii intuusan tukan adin ama aqin wuu dhexgelin karaa sida nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam. sheekh salaad aad baa mahadsan tahay. tusaale ahaan qof baa safray wuxuu tukaday duhur wuxuuna gaaray markaas ama uu go-aansaday inuu ama joogo meeshii markaas uu ku tukaday duhurkii marka casir oo kaleeto muxuu sameynaa. maalan waxaan ka fahmay qofkii markuu jamci niyeestay ee labadii salaadood inuu isku jamciyo uu niyeestay safarkiina uu ku guda jiro buu wuxuu tukaday salaadii duhur kadib baa niyadiisii waxay ku soo dhacday inuu iska joogo casarkii waqtigeedii baa lala sugayaa wallahu aclam. waa hagaag waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena islaamkii nolosha. barnaamijkeena islaamkii nolosha waxaa marti inoogu ahaa sheekh salaad cantoob xasan. waxaa idiin soo saaray anigoo ah maxamed axmed xalane. waa farsamadii cabaas waa bahdii barnaamijka islaamkii nolosha idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.